soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan khulaasayn doonaa film lagu magacaabo Jalabi oo soo baxay 2018. waa film ka hadlaya laba qof oo si qoto dheer isu jeclaaday loona kala magacaabo Aisha iyo Def. labadooda jacaylkoodu wuxuu ku bilaabmaa si degdeg ah oo qurux badan iyagoo ku kulma safar tareen ah. si dhaqso ah ayay isu jeclaadaan waxayna go'aansadaan inay isguursadaan inkastoo ay wajahayaan dhibaatooyin qoys. haddaad rabtiin filmaanta noocan camal inaan soo khulaaseeyo subscribe iyo like hanaga hilmaamin waa inoo dhiirigelin. filimku wuxuu ku bilaabmaa Asiya Bradan oo la hadlaysa aabaheed iyadoo niyad ahaan aad u culaysan. waxay muujinaysaa murugo iyo jahawareer ku saabsan nolosheeda iyo guurka, gaar ahaan su'aal weli maskaxdeeda ka dhex guuxaysa oo ku saabsan qof ay jeclayd aan u imaan. ugu dambayn waxay ka codsanaysaa aabaheed inuu siiyo 2-4 saacadood si ay meel uga baxdo oo ay keligeed uga fikirto. aabaheed ayaa ka codsaday Asiya inay baajiso kulanka akhrinta buuggeeda ee ka dhacaya Delhi, balse iyadu waxay ugu jawaabtay inaysan mar dambe ka carari karin wixii hore u dhacay. muuqaalku wuxuu markaas u wareegayaa saldhig tare. Asiya waxay wicitaan ka heshaa saaxiibteed Anera oo weydiisa sababta ay ugu jirtay ballankii guurka ee ay la lahayd Sameer daqiiqadii ugu dambaysay. Asiya waxay ugu jawaabtaa inaysan guursan karin, isla markaana aysan doonayn inay mar kale samayso qaladkii hore. Anera waxay kula talisaa inay bilowdo qorista buuggeeda cusub, balse Asiya waxay ku jawaabtaa inaysan awoodin inay wax qorto sababtoo ah mar kasta oo ay furto laptopkeeda waxaa maskaxdeeda ku soo laabta su'aal dhibaysa. su'aashaasi waa, haddii uu i jeclaa maxaa uu iman waayey? Anera waxay ku tiri, runtu waa in uusan weligiis ku jeclaan. taas markay maqashay Asiya way xanaaqday oo taleefankii ayay ka xirtay. kadibna Asiya waxay fuushaa tareenka. daqiiqado yar kadibna sheekadu halkaas ayay ka sii socotaa. markii dambe waardiyihii tareenka ayaa yimid oo ka codsaday Asiya inay beddesho qolkeeda. halkii ay keligeed ku safri lahayd ayuu ka codsaday inay u guurto qol 4 qof wadaagaan. way ogolaatay waxaana loo qaaday qol cusub. qolkaas waxay kula kulantay hooyo iyo gabadheeda oo iyaguna wada safraya. haweeneyda ayaa isbaratay oo sheegtay in magaceedu yahay Anu, gabadheedana la yiraahdo Bolti. Anu waxay u kacday inay musqusha aado, waxayna ka codsatay Asiya inay in yar ilaaliso Bolti inta ay ka soo noqonayso. markay baxday, Bolti waxay Asiya u sheegtay in magaceeda loogu bixiyay Bolti sababtoo ah mar walba way shaxaysaa oo way qasqasisaa. markuu tareenku dhaqaaqay, Bolti waxay bilowday inay qayliso oo ay ku dhawaaqdo hooyo, balse wax yar kadib Anu way soo noqotay waxayna u mahadcelisay Asiya inay gabadheeda ilaalisay. kadib Asiya waxay ka baxday qolka si ay keligeed ugu fikirto. meesha bannaanka ah waxay ku aragtay nin sigaar cabaya, wayna ka codsatay hal sigaar. ninkii wuxuu u dhiibay tiisa isagoo leh, waxaad moodaa qof murugaysan. Asiya waxay ku jawaabtay, qof murugo qaba ayaa garan kara murugada qof kale. markuu taas maqlay, had murugo ah ayaa wejigiisa ka muuqday wuuna iska dhaqaaqay. Asiya waxay dib ugu noqotay qolkii waxayna halkaas ka heshay Anu oo taleefan kula hadlaysa ninkeeda. markii ay dhammaysay wicitaankii, Anu waxay bilowday inay soo bixiso cunto. waxay Asiya weydiisay, miyaad la hadlaysay Arjun? sax. waxaa soo baxday in ninkii ay ku aragtay dariiqa tareenka uu mar ka soo muuqday telefishanka islamarkaana yahay fanaan caan ah. kadib Anu waxay Asiya u soo bandhigtay inay wadaagaan qadadooda, balse Asiya si edeb leh ayay u diiday. isla markaas Bolti ayaa kacday oo gacanteeda ku siisay hal kebab. Anu aad bay ula yaabtay ficilka gabadheeda waxayna tiri, kawaabka waa waxa ay ugu jeceshahay, weligeed cidna lama wadaagto. waxay u muuqatay in Bolti aad u jeclaatay Asiya. markaas Anu waxay u sheegtay sheeko inay booqatay sodohdeed walaasha ninkeeda oo joogta Mumbai, haddana ay ku sii jeedo gurigooda Delhi. waxay markaas Asiya weydiisay sababta ay iyadu u aadayso Delhi. Asiya waxay ku jawaabtay inay halkaas ku leedahay kulan akhrinta buuggeeda. Anu waxay markaas bilowday inay ka sheekayso gurigooda oo ku yaala Old Delhi. waxayna sheegtay in xaafadooda lagu yaqaan magaca gurigooda Netaji Manor. magacaas markii ay maqashay, Asiya si lama filaan ah ayay u gariirtay. neefta ayaa ku yaraatay waxayna ku tiirsatay sariirteeda. muuqaalku wuxuu nagu celinayaa wixii hore. Asiya oo mar hore Delhi u timid iyada oo la socota saaxiibteed Anera iyo hagaha dalxiiska ee la yiraahdo Def, kaas oo u kaxeeyay guriga Netaji Manor. Netaji Manor, Def wuxuu Asiya iyo Anera tusay gurigooda isagoo uga warramaya taariikhdiisa. wuxuuna sheegay in gurigan la dhisay sanadkii 1858. safarkii guriga wuxuu ku soo gebagabeeyey cunto dhaqameed ay hooyadiis u diyaarisay. intii ay wax cunayeen, Def wuxuu uga sheekeeyey sheekooyin xiiso badan oo ku saabsan guriga iyo taariikhdiisa. Anerana aad bay ugu qancday oo si weyn ayay ula dhacsanayd. walaashiis Renu ayaa markaas u sheegtay in Def uu haysto bid, islamarkaana uu hore u ahaa brofesor taariikhda dhiga, balse uu shaqadii ka tegey jacayl uu u qabay agabkii iyo dhaxalkii hore. Old Relics dib ugu noqoshada xilliga hadda. Asiya waxay ka baxdaa qolka tareenka iyadoo si degdeg ah u neefsanaysa. wiilal ka tirsan qolkii deriska oo ahaa saaxiibada Arjun ayaa bannaanka u soo baxa iyagoo ka sheekaysanaya hees hore oo retro ah. heestaasi mar kale ayay Asiya maskaxdeeda dib ugu celisaa wixii hore, dib ugu noqoshada waagii hore. Asiya waxay u tagtaa Def oo weydiisataa inuu waqti u siiyo. Def wuu ka cudurdaartaa isagoo leh in socod dalxiis uu bilaabmi doono, balse waxaa soo baxda in Asiya ay iyadu tahay qofka ballansaday safarka. Def wuxuu ku yiraahdaa isagoo qosolaya, adigu gebi ahaanba waad waalan tahay. Asiyana way qososhaa. labadooduba waxay raacaan rickshaw iyagoo sheeko fudud wadaagaya. Def wuxuu u sheegay in kartidiisa uu ku sharxo taariikhda ay ka timid aabihiis, maadaama uu aabihii mar kasta kaxayn jiray taalooyinka iyo dhismayaasha qadiimiga ah una sharxi jiray taariikhdooda. xataa maanta marka Def uu sameeyo safaradan dalxiiska, wuxuu dareemaa sidii in aabihiis weli la joogo oo garabkiisa taagan yahay. labadoodu waxay bilaabaan inay wada socdaan iyagoo gacmaha is haysta, waxayna waqti badan isla qaataan iyagoo ku wareegaya xaafadaha Delhi. si degdeg ah ayay isugu dhowaadaan, maalmona way wada qaataan. maalmahaas gudahood waxay isu qaadaan jacayl. habeen meel mugdi ah oo cidlo ah ayay isku dhunkadaan. Defna wuxuu Asiya ugu yeeraa naanaysta Jalebi. dib ugu noqoshada tareenka xilliga hadda, Asiya waxay wacdaa Anera kadib 30 daqiiqo oo ay wada hadlayaan. mar kale ayay dib u wacdaa. waxay Anera u sheegtaa in haweeneyda qolkeeda la joogta ay tahay xaaska Def, taas oo macnaheedu yahay in Def yahay ninkeedii hore, islamarkaana ay wataan gabadh 7 jir ah. Anera waxay markaas ku celisaa, Def
weligiis kuma jeclaan wuu ku isticmaalayay laakiin aasiya waxay ku jawaabtaa in qalbigeedu uusan aqbali karin in def uusan weligii jeclaan maskaxdeeduna aysan rumaysan karin inuu khiyaami lahaa kadib aasiya waxay u tagtaa waardiyaha tareenka waxayna ka codsataa inuu u bedelo qol wuxuu ku yidhaahdaa sii 10 daqiiqo aan eego meel bannaan wuuna baxaa tareenku wuxuu istaagaa saldhigga xiga waxaana fuula lamaane waayeel ah waxay galaan qolka ku xiga ka aasiya kadibna waxay u yeeraan bolti si ay ula kulmaan aasiya waxay dhammaan arrintan ka daawanaysaa albaabka qolka iyadoo aamusan oo fikir qoto dheer ku jirta